Soomaaliya oo haatan meel xun maraysa ayaa salka ku haysa muranka heshiiskii dekadda Berbera. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Cawad ayaa Imaaraadka ka codsaday inay ka noqoto heshiiska dekadda Berbera ay la gashay Somaliland si aan loogu xadgudbin madaxbannaanida Soomaaliya. laakiin dowladda Imaaraadka ayaa dhinaceeda ku dooday inaysan ku xadgudbin madaxbannaanida Soomaaliya isla markaana ay arrinta dekadda Berbera kala heshiisay dowladihii hore ee dalka Soomaaliya. haddaba VOA-da ayaa heshiiska Berbera wax ka weydiisay Cumar Cabdirashiid Cali Shamarke, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo haatan London ku sugan. in anaga wax heshiis ah haba yaraatee ama ha ahaato tan military ama ha ahaato tan ganacsi Berbera aan boosaas horta anaga wax heshiis aan galnay haba yaraatee ma jiraan. ku igu horreeyay dee uma hadli karo, waxa u hadli kara dadkii markaas mas-uuliyadda hayay, laakiin labadii sano anaga aan joogno wax heshiis aan la galnay haba yaraatee dowladda Imaaraadka ah ma jiraan. marka waxaana waxa wanaagsan sideedaba inaysan habka hadda wax loo maareynayo ee xanta ah in dadku ay inta ka baxaan qoladii la siyaxatay iyo qoladii waxaan samaysay qoladii heshiiska gashay intaba intee way cad yihiin qof wax qarin kara haba yaraatee ama inkari kara ma jiro intay wax galaan. qoladii la gashay in dowladda Imaaraadka si official ah inta loo warsado ay ka wada hadlaan dowladda Soomaaliyeed. iyadoo xiisadda diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Abu Dhabi ay cakiran tahay ayaa dhinaca kale waxaa maanta dowladda Qatar oo Imaaraadku ay ishayaan ay geysay magaalada Muqdisho safiir cusub oo u joogi doona Soomaaliya. safiirka ayaa warqadihiisii diblomaasiyadeed waxaa ka guddoomay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.